الله u naxariistay waxaa halkan laga qaaday meydka qamar cabdi cumar oo ahayd hooyo dhashay 12 caruur ah oo xalay saygii qabay uu ku dilay magaalada Muqdisho dilka oo ka dhacay degmada Xamar Jajab ayaa la sheegay in uu ninka fuliyay uu ku fuliyay midi nooca geelka lagu qala ah sida ehelku ay noo sheegeen sidaasna ay ku geeriyotay marxuumadu kadib markii uu ku dhuftay 6 nabar oo markaasi midida ah waxaa la xaqiijiyay in dilku uu yimid kadib markii muran ka dhashay lacag uu ka codsaday inay siiso ay u sheegtay inaysan haynin lacagtaas oo qadarkeedu dhamaa sida ehelku ay noo sheegeen $25 taa bedelkeedina iyadoo ay sheegtay in aysan awoodin 25 kaas isla markaana ay laadahay $2 oo sida ay sheegtay marxuumadu ay casho ugu kariso caruurta ay dhashay 12 ka ah aad dabcan isku bedelay dareenka qaar kamid ah ehelka waxaa halkan jooga 12 caruurta ahayd ee ay dhashay marxuumadu qaar kamid ah caruurteeda ayaa miir daboolnay oo ay kamid tahay gabadhan oo kamid ah gabdhaha ay dhashay marxuumadu waxaa meeshan ku il daran oo jooga caruurteedii waaye waxaad aragtay ninka dile ma aha ninka fog waa ninkii ayada ciyaalka ee u dhashay oo xaasiisay ahayd wuxuu ku haystay oo ku qabsaday lacaga ayada ay leedahay oo raba markaas $25 lacag si mootaan rabaa inaan ku samaystay $25 lacag ma hayo dhahday $25 lacag ma hayo $2 cashaan ku karsadaan waaye maba ii way kartidoo dhaha waa haysataa lacagta isii waa doodeen hadday doodeen kadib wiilkeeda oo 15 jir oo guriga markaas kula sugnaa waa soo dhex galay habartii adoogii kala qabtay hooyadiisuu bannaanka u soo bixiyey hooyadii bannaanka hadda u soo bixiyey wuxuu yidhi hooyo aabe anaa kaa celinaayo guriga ayayaan ku geynaahay inta sii joog kabaan soo gashanaa adoogina qolka uga soo tagay wiilka wuu caga caddaay dacaskiisuu doontay dacaskii mar allaale markuu u laabtay wiilka markuu dacaskii u laabtay oo dacaskii doontay wuxuu arkay habartiioo meeshaan adoogii tooreydii oo midida uu la kortaaya toorey xitaa maba aanbo midida geelka lagu qalo waayo oo xoolaha lagu birayo waa aragtay mididaas waaye wuxuu ku dilay walaashay dawladda waxaan ugu barayaa inay cadaaladda ay ii soo qabato caruur ayay ka tagtay ninkii dilay walaashay inaa la soo qabto oo maxkamad la soo saaro afartaana hadda u yar midkaana hadda u yar ciyaalka dhan rajay lahaayeen ayadaa ximin aabbiyo ximin hooyaba ayadaa heese hadeertaan waa kana waxay leeyihiin hooyo rajadii hooyo ee lahayd mina oofinaysaa marka cadaaladda waxaan ka baryaa inaa lee soo qabto ninkaas meel alla meeshuu joogo hadda kahor waa isdagaaleen waa la heshiisii aniga nin baadiyaas iska joogaan ahay oon soco karin oo 15 sano lugaha ka fadhiyo ayaan ahay aniga marka waxaan idinku codsanayaa ninkaas cadaaladii in la keeno taas baan idinku codsanayaa aniga maxamed shamsi yal yiraahdo aniga walaasheed ka weynaan ahay wuu galay gudaha mindiyuu soo baxsaday habartii oo bannaanka fadhisay oo mindidii ku celceliyey wuxuu aga dhuftay halkaas naaska hoostiisa garabka gadaal haddana naaskii oo meel kale ah haddana garabka adiga waxaa ku dhacday ugu yaraan 6 iyo 7 camal mindi ahaa ku dhacday mindiyada oo geela lagu qalano waayo mindiyo yaryar ma aha ma fahmaysaa sharaacadda waxay dhigaysa ninkaaseeto inaan noola soo marsiiyo nin naagtiisa dili sharciga wuxuu dhigaayo ha noola soo qoro ninkeeda waa 12 cunug bay u dhashay hal cunug waa ka dhintay 11 u joogto
ninka falka dilka ah u geystay xaaskiisa oo lagu magacaabo maxamed shamsi ayaa markii falka dilka ah u geystay oo ahayd xalay xilli dambe oo saqdhaxa waxaa la sheegay inuu ka baxsaday goobtii falka dilka uu ka geystay oo ku taala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir oo qoyskan ay deganaayeen laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaana ehelka marxumadda ugu baaqeen in ay cadaalad hesho isla markaana gacanta lagu soo dhigo ninkii falkan geystay maxamed cabdi xasan iidle raadiyaha telefishinka dalsan muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta